السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود وده أدي هذا وما سنتهين وحبينما أي سنين السيب حيث ثلاثة أي سوق ليسو أنا قصد حيل لباتنك بيش الله بعد فبراير سنة كلا بدو كوني اللي حيل لباتنك أي ولينو تهاي ذاتك قارنا أفريل لباتنك بيش أي جوجان موقال كان وحن ربائنا ندكله وداقه وحبال السوق رحية مغلى جرتين عيدا ماذي آيس أي السوق رحية نين عيدا ماذا آيس كتر سنة أو تضبات كهر شقة كتجي ayaa waxa uu soo qarxiyay sirta dhinaca tababarada ee ciidamada ICE waxa uu yiri ciidamadan tababaro ku filan lama siiyo waxyaabihii muhiimka ee loogu talagalayna lama baro dastuurka inay ku xadgudbaan ayaana la bara haddaba ninkan muxuu yahay xubno ka tirsan la xisbiga dimuqraadiga oo aqalka wakiilada iyo sanadka ka kooban ayaa ninkan waxa uu kula hadlay Congress-ka iyadoo warbaahinada caalamkana laga sii daayay ninkan waxyaabaha uu sheegayo marka aad daawataan waxaad ogaanaysaan ciidamadii ICE ee gobolka Minnesota ku dhawaad 3 bilood ee la soo dhaafay qasayay sida gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz iyo maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey ay sheegayeen oo ay ku celceliyeen oo dhahayeen ciidamadan aan tababarnayn ha isaga baxaan gobolka Minnesota in ay arintaasi sax tahay ayaa idin soo bixi doonta bal arimahaasi ayaan idin la wadaagayaa soo dhawaada waqti jirtaan qof ayaa la soo qarxiyay ama madaxweyne ama dawlad ayaa la soo qarxiyay hadda ciidamadii ICE ayaa la soo qarxiyay nin whistleblower ah ayaa banaanka iskeenay whistleblower macnaheedu waxa yahay qof sir uu ogaa uu qarinayay shaaca ka qaado ninkan magaciisa waxa la yiraahdaa Ryan Schwank ciidamada ICE ayuu ka tirsanaa ku dhawaad muddo 4 sano iyo bar ah dhinaca tababarada ayuuna u qaabilsanaa marka waxa uu shaaca ka qaadaya uu leeyahay ciidamada ICE tababarkii loogu talagalay in la siiyo si waajibaadkooda sidii loogu talagalay ay u gutaan tababarkaasi lama siiyo ninkan marka hore waxa uu faahfaahin ka bixinayaa ICE markii uu ku soo biiray muddada uu la shaqeynayay iyo sida xadgudubyo wasaaradda amniga gudaha ay u sameynayso la xiriirta dhinaca tababarada ciidamada ICE oo ilaa iyo Trump markii uu xilka la wareegay howlgallo ballaaran oo dadka sharci darrada iyo kuwa ay sheegeen inay dambiilayaal yihiin ay ku qabqabanayeen wuxuu yiri aniga magacayga waxa la yiraahdaa Ryan Schwank waxaanan u dhaartay ayuu yiri inaan dastuurka ilaaliyo ICE waxaan ku soo biirow yiri ayna bishii Agosto 1 sanadkii 2021 waxana uu sheegay in uu raacayay muddo 4 sano iyo bar ah waxyaabaha daartiisu ay faraysay waxa aan dastuurka ilaalinaya ayuu yiri ilaa iyo markii aan casilay bishan February hadda aynu ku jirno 13 adiga ku dhawaad muddo toddobaad iyo maalmo ka hor waaye sanadka 2026 ayaan casilay ayuu yiri si aan adinka idin la hadlo xubnaha marka dimuqraadiyiinta uu dhageysanayay ayuu yiri si aan arintan shaaca uga qaadoon idin la hadlo darteed ayaan isku casilay waxaan halkan u joogaa uu yiri maxaa yeelay waajibkayga ay mas'uuliyad iga saaran tahay in aan soo sheego sharciguna uu iiga baahan yahay in tababarada ciidamada ICE la siinayo xarumaha lagu tababaro lagu siinayo in tababar yaraan ay jirto tababarkaasina uusan shaqaynaynin isla markaana uu yahay mid broken ah oo gabi ahaanba burbursan waxa uu yiri tababarada ciidamada ICE lagu siiyo xarumaha lagu tababaro waa mid aad u yar mana shaqaynayo mid lagu shaqayn kara maahan gabi ahaanna waaba waxba kama jiraan bal isagoo arrimahaasi ka hadlayo magaciisa ku bilaabaya inta ciidamada ICE uu la soo shaqaynayay isla markaana dhahaya waajibkayga dastuurka ayaa ay amraya in aan runta cadeeyo warkaasi kadib Ryan Schwank waxa uu sii guda galay bal isagu tababar uu ciidamo siinayay ICE inta saacadihii loogu talagalay saacada ka yar in lagu siiyo wuxuu yiri 5 bilood ka hor waxa la ii weydiistay ayuu yiri in aan tababar siiyo ciidamo cusub oo ICE ay soo qoratay waxaan ku tababarayay magaalo ku taala gobolka Georgia oo xarunta ugu weyn oo ciidamada ICE lagu tababaro marka wuxuu yiri si mutadawacnimo ah ayaan waxa aan u qaato yiri howlaha shaqada la ii siiyay oo ku saleysan maadaama khibrad dhinaca ciidamada aan leeyahay isla markaana aan heer gobol iyo waliba heer dawladaha hoose aan la soo shaqeeyay in aan tababarkaasi ciidamada aan siiyo horeyna aan ciidamada ICE ula shaqeyn jiray waxa uu yiri maalintii ugu horeysay waxa uu yiri
waxaa laysiiyey amaro sir ah oo aniga igu kooban uu leeyahay waxaa la ii sheegay in ciidamadan cusub ee ICE aan baro inay dastuurka ku xadgudbaan iyagoo galaya ayuu yiri guryaha dadku ay leeyihiin iyagoo aan wadan waraaq waaranti ah oo garsoore uu soo saxiixay wuxuu yiri 5 bilood ee la soo dhaafay waxaan goobjoog u ahaa ciidamada ICE oo kala furfuraya ayuu yiri tababaradii loogu talagalay waxa la yareeyay ayuu yiri saacadihii loogu talagalay in tababarada la siiyo ciidamada ICE waxa laga jaray ayuu yiri 240 saacadood wuxuu yiri ciidamada ICE in tababar la siiyo waxa ku filan 584 saacadood marka 240 ayaa laga jaray marka 344 saacadood ayay macnaheedu noqonaysaa marka oo tababara in ciidamada ICE la siiyo sidaas darteed wuxuu yiri galaasyada la doonayay in lagu baro dastuurka iyo sidoo kalena in habka sharciga ah gabi ahaanba waa laga gudbay waxyaabaha wuxuu yiri aan ciidamada la baraynin waxa kamid ah sida loo isticmaalo hubka oo kale lama barayo waa laga gudbay ayuu yiri waxaan sidoo kale la baraynin yiri marka loo baahan yahay awood xad dhaaf in la isticmaalo iyo sidoo kalena sida qaab sharci ah qof loogu soo xiro sida marka qofka la soo xiro qaab sharciyeysan loogu haynayo meelaha la geeyo oo ciidamada ICE ay geeyaan iyo sidoo kalena in la xadido awoodda askariga ciidamada ICE uu leeyahay dhammaanba waxyaabahaasi lama barayo ayuu yiri askariga waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo in la baro sida hubka loo isticmaalo sida qofka gurihiisa aan loo gelin bilaa sharci la'aan sida awoodooda xadaafka markay isticmaalayaan iyo marka waxyaabahaasi oo idil wuxuu yiri ciidamada ICE maba la barayaba waa laga gudbo saacadaha la jaray ayay ku jireen tusaale ahaan wuxuu yiri waxa uu soo qaatay waxa gabi ahaanba la diiday ayuu yiri wax qaababka sharciga ah ee marka awood xadaaf la isticmaalayo ciidamada ICE inaan barno gabi ahaanba waana loo diiday taasi macnaheedu waxay tahay uu yiri in aanba la barinba ciidamada ICE sida ay macquul u tahay iyo qaababka sharciga ah ee la raacayo ee loo baahan yahay marka uu go'aansanayo in awood xad dhaaf ciidamada ICE ay isticmaalaan marka shaqadeenu wuxuu yiri ka tababarayaal ahaan waxa ay tahay in aan si wanaagsan ciidamada ICE u barno in daksekana gudahood ay go'aan ku gaaraan marka loo baahan yahay awood xad dhaaf in la isticmaalo iyo marka aan loo baahnayn xaaladdu marka ay taagan tahay in qofku uu go'aan degdeg ah sakana uu ku gaaro ma waxaad u baahan tahay in awood xadaaf isticmaasho mise uma baahnid marka wuxuu yiri wasaaradda amniga gudaha gabi ahaanba waxa ay kala furfurtay oo meesha ay ka saartay xeerarkii iyo waliba qaababkii loo baahnaa in ciidamada ICE ee la tababarayo xilliga ay u baahan yihiin in ay sin ammaan ah oo waliba safely oo ammaan ah iyo waliba si sharci ah waajibkooda ay u gutaan arintaasina wuxuu yiri wasaaradda amniga gudaha waxay u sameynaysaa oo kaliya in ay qanciso maamulka waa maamulka madaxweyne Trump isla markaana in ay tababaraan kumanaan ciidamo ah inta uusan sanad ku dhamaanin marka wuxuu yiri maadaama loo baahnaa ciidamo fara badan in tababarka ay ka soo baxaan waajibaad fara badan oo loo baahnaa ciidamada in la baro wasaaradda amniga gudaha meesha ay ka saartay si maamulka Trump madaxweyne Trump ay u qanciso oo yiraahdaan intaan oo ciidan ah ayaan tababarnay waana diyaar bal isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri kale waxa uu sii watay hadalkiisa Ryan Eshwanki waxa uu yiri wasaaradda amniga gudaha shacabka Mareykanka waxay u sheegtay in ciidamada cusub ee ICE loo tababarayo ay helaanba dhammaanba traininka loo baahan yahay si waajibaadkooda ay uga soo baxaan laakiin waxa uu yiri waxa meesha laga saaray oo la jaray waxyaabo muhiim ah oo loo baahnaa ciidamada in la baro arintaasina been ayaa wasaaradda amniga gudaha ay ku sheegtay ayuu yiri Ryan Eshwanki isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ICE marka tababarka la siinayay loo soo gaabiyay tababaradooda isla markaana meesha laga saaray waxyaabo muhiim ah taasi oo muhiim u ah shaqadooda isla markaana qatar keeni karta waxana uu sheegay qof macquul ah ma rumaysno in tababarkaasi la jaray oo gabi ahaanba kala bar laga dhigay tababarkii la siin jiray maadaama saacado fara badan la jaray in arintaasi aysan sharci ahayn Congress-kuna waxa uu u baahan yahay sargaalka immigration-ka marka la tababarayo in tababarkiisa loo dhameystiro marka waxa uu yiri ICE shaqadooda waajibkooda sidii loogu talagalay uguma soo bixi karaan dad ma xiri karaan hubna ma qaadan karaan awood xad dhaafana ma isticmaali karaan haddii aysan ku baasin tababarkaasi marka askarigu marka tababar la siiyo marka imtixaanka laga qaadayo waxyaabihii la tababaray ayaa lagu imtixaamaa marka waxa uu sheegay in marka ay qalin jabinayaan ciidamadan la tababaray waxa anagii tababarayaasha ahaa waxa uu yiri waxaan walaac weyn ka qabnay in ciidamadan maalmaha ugu dambeeya
trainingkooda in xitaa aysanba samayn karin waxyaabihii lagu tababaray taasina xirfadihii la baray dhammaantoodba aysan samayn karin taasina waxay u baahneed ayuu yidhi si ay shaqadooda u gutaan marka wuxuu yidhi waa in isbeddel lagu sameeyaa dib u habeyn ciidamada ICE waxaana uu sheegay in kumanaanka ciidamada ICE markii ay soo qalin jebinayeen aysanba aqoonin waajibaadkooda dhinaca dastuuriga ma aysan aqoonin awoodooda halka ay gaarsiisan tahay sargaal kasta awoodda uu leeyahay sidoo kale ma aysan garanaynin in ay kala ogaadaan waxyaabahan ay samaynayaan ma sharciya mise sharci ma ahan maba aysan kala ogeyn ayuu yidhi markii ay qalin jebiyeen waxyaabahaasi oo idin waa kan mar kale Ryan Schwank isagoo ka hadlayay arrimahaas eedeymahan in tababar ku filan ciidamada ICE aan la siinin warbaahintu muddooyinkii ugu dambeeyay waa ay ka hadlaysay laakiin hadda waxaa shaaca ka qaadaya ooba ka hadlayaba mid ka mid ah saraakiishii tababarayay oo dhahaya wasaaradda amniga gudaha kala bar ayay ka dhigtay tababaradii ciidamada ICE la siin jiray waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo loo baahnaa in la barana maba la barinba marka wayna arki doonaa wasaaradda amniga gudaha iyo maamulka Trump arrintan waxyaabaha ay uga jawaabaan laakiin sida muuqanaysa waa fadeexad cad oo ciidamada ICE in wadooyinka Mareykanka lagu soo fasaxay iyagoo wax tababar ku filan aan la siinin taasina ay sababtay in ay dilaan hadda 2 qof gobolka Minnesota ay ku dileen Rene Good iyo waliba Alex Brady hadda waxaa soo baxday bishii March ee sanadkii 2025 in gobolka Texasna wiil kale oo dhalinyaro ah oo 23 jir ah ay ku dileen sababta hal sano loo qarinaya hadda March ayaa soo socota hal sano ku dhawaad sababta loo qarinaya in ciidamada ICE ay wiilkaasi dhalinyarada gobolka Texas ay ku dileen ilaa ay hadda baaritaankeedu waa u socdaa ciidamada ICE wasaaradda amniga gudahana waxay sheegeen in ciidamo meel traffic taagan oo gawaarida tilmaamaya oo ninkan gaari ku soo kaxeeyay askariga xabadda ku dhuftayna oo xitaa dhaawacay oo askarigii la daweeyay marka sidaas ay leeyihiin laakiin qoyskiisa cadaalad ay hadda dalbanayaan marka arrimahaas ayaan rabay inaan nila socodsiiyo ICE oo soo qarxiyay waxyaabaha kale ee soo kordhay haddii alla idmo waa nila soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan